haddaan ku dhaha ka waran been waaye bariis iyo baasto kuma cayilin. haddaan ku dhaha ka waran been waaye buskud iyo xalwad kuma cayilin. haddaan ku dhaha ka waran been waaye biitsa iyo hambeegar kuma cayilin. haddaan ku dhaha ka waran nacnac iyo shukulaato kuma cayilin. waa ogahay adiga videogan fiirsanaayo waxaa isleedahay waxaasoo dhan haddaa ku cayilin maxaa ku cayishay. sug isdaji anaa kuu sheegay videogan ilaa dhammaadkiisa fiirso. asxaabta soo dhawaada saaxiibkii maryole masal waaye mininka mininkiini waaye adiga walaashay walaalkay. haddaa janalkan ku cusub tahay ani magacayga waa cabdinaasir waxaan suubiyaa fideoyo ku saabsan jirdhiska iyo raashinka. fideoga wuxuu ka kooban yahay laba qaybood, qayb anoo jiimka joogo oo training garaynayo, qaybta dambena waxaan kuu sharaxa waxaa adiga ku cayishay. soo dhawaada mininka mininkiini waaye. mideeda kale iloobina videogan like inaad saartaan, commenti kasoo bixisiin, asxaabtiina u share garaysaan. haddaa weli subscribe ihina fadlan subscribe leh, subscribe-ka free waaye. mar koobaad, mar labaad, mar saddexaad soo dhawaada waxaa noo balana jiimka. asxaabta saa ujeedaan waxaan joogaa jiimka. maanta ballanta waxay ahayd inaan suubiyo garbaha. waxaan ka bilaabay jimicsigan standing barbell shoulder press. waxaan ka suubiyey 4 set, markiiba waxaan suubiyey 8 jeer. saarkiisiin waxaan ku suubinoyaa miisaan aan si sahlan uga suubin karin ilaa 8 jeer. islamarkaana miisaanka aan ku suubinayo waxaan isku dayayaa inaan kontaroolo si muqaha loogu talagalay shaqada ay u qabtaan. fiiri, jimicsiga marka aad ku suubisid miisaan culus, markaas waxaa imaanayo shaqada waxaa aad uga qayb qaadanayo lugaha iyo dhabarka qaybta hoose. markaasna muqihii loogu talagalay shaqada sidii la rabay uma qabanayaan. mideeda kale waxaa muhiim ah jimicsiga marka aad suubinaysid inaad adkeyn kartid lugaha, qaarka dambe iyo dhaxda. fiiri, dhaxda markaa adkaysid, qaarka dambena aad adkaysid, lugahana aad adkaysid, jimicsigan si sahlan ayaad u suubin kartaa. markii aan dhameeyey jimicsigaas waxaan ku xijiyey seated dumbbell shoulder press. waxaan ka suubiyey 4 set, set walba waxaan suubiyey ilaa 8 jeer. sa arkaysiin waxaan ku suubinoyaa miisaan aanan si sahlan uga suubin karin ilaa 8 jeer. islamarkaana waxaan isku dayayaa miisaanka inaan kontaroolo mar walbo si shaqada ay u qabtaan muqaha loogu talagalay. fiiri, markaa jimicsiyadan oo kale aad suubinaysid ama markaa miisaan culus ku training garaynaysid waxaa muhiim ah setska dhexdooda inaad nasatid daqiiqad ilaa 2 daqiiqo. haddii aadan nasan markaas waxaa kugu adkaanayso culayska inaad si fiican u qaadid. taasna waxay keenaysaa miisaanka inaad dhintid, markaasna ma fiicna. marka haddii aad rabtid isku culays ama culays badan setskaago dhan inaad ku suubisid waxaa fiican setska dhexdooda inaad nasatid daqiiqad ilaa 2 daqiiqo. tusaale ahaan ani lugaha marka aan suubinayo setska dhexdooda waxaa nastaa ilaa 5 daqiiqo. markii aan dhameeyey jimicsigaas waxaan ku xijiyey shoulder press machine neutral grip. waxaan ka suubiyey 4 set, set walba waxaan suubiyey 8 ilaa 10 jeer. sa arkaysiin waxaan ku suubinoyaa miisaan aanan si sahlan uga suubin karin 8 ilaa 10 jeer. mashiinkan oo kale jiimkiina hadduu oolin waxaa ku suubin kartaa jimicsigan dumbbells. jimicsigaas markaan dhameeyey waxaan ku xijiyey smith machine shoulder press behind the neck. waxaan ka suubiyey 4 set, set walba waxaan suubiyey 10 ilaa 15 jeer. sa arkaysiin waxaan ku suubinoyaa miisaan aanan si sahlan uga suubin karin 10 ilaa 15 jeer. ogow jimicsigan miisaan culus hadaa ku suubisid oo si khaldan u qaadid markaas waxaa imaanayso garabka inaad iska dhaawacdid. haddaa garabka ka dhaawacantana markaas qaadistoo dhan dhib ayay kugu noqonaysaa. markii aan dhameeyey jimicsigaas waxaan ku xijiyey lateral rise machine. waxaan ka suubiyey 4 set, set walba waxaan suubiyey ilaa 15 jeer. sa arkaysiin waxaan ku suubinoyaa miisaan aanan si sahlan uga suubin karin ilaa 15 jeer. islamarkaana miisaankan ku suubinayo waan kontaroolayaa si murqaha loogu talagalay shaqada ay u qabtaan. runtii jimicsiga marka aan suubinayo, marka dumbbells ku suubiyo iyo marka mashiinkan ku suubiyo waxaan saa'id u dareemaa marka mashiinkan ku suubinayo. marka adiga videogan fiirsanayo jiimkiina hadduu yaalo mashiinkan oo kale bal tijaabi. gabagabadii waxaan kusoo gabagabeeyey Riddles fly machine. waxaan ka suubiyey 4 set, set walba waxaan suubiyey ilaa 15 jeer. sa weli arkaysiin waxaan ku suubinoyaa miisaan aanan si sahlan uga suubin karin 15 jeer. islamarkaana miisaankaan ku suubinayo waan kontaroolayaa. dad badan waxay suubiyaan khaladkan markay garbaha suubinayaan ama maalintay garbaha suubinayaan ma suubiyaan garbaha qaybta dambe, waxay suubiyaan bes garbaha qaybta hore iyo geesaha garbaha.
dadka markay suubinayaan garbaha sababtay u suubiyaan inta badan garbaha qaybta hore iyo geesaha waxay tahay markay suubinayaan muraayadda ayay isku arkayaan laakiin markaad suubinaysid garbaha qaybta dambe muraayadda iskuma arkaysid saas darteed dad badan inta badan way iloobaan marka maalintaa garbaha suubinaysid waxaa muhiim ah inaad kusoo dartid jimicsiyo loogu talagalay garbaha qaybta dambe dad badan oo dadkeena ka mid ah marka la dhaho waxaa cunaysid iska fiiri oo cun raashin adiga wax kuu taraayo marka la dhaho jimicsi suubi ama dhaqdhaqaaq suubi waxaas kaftan ay u haystaan oo wax weyn uma maleeyaan sababtoo ah dadkeena dad badan oo ka mid ah waxaa ku borogaraamsan bini'aadanka waagii hore suu u noolaan jiray maanta bini'aadanka suu u nool yahay iyo shalay suu u noolaa farqi weyn ayaa u dhexeeyo waagii hore bini'aadanka maalintii wuxuu cunaayo inuu helo juhdi badan ayaa uga bixi jiray dadka beeraley ahaan jireen xoolo dhaqatay ahaan jireen ugaarsatay ahaan jireen dhaqdhaqaaq badan ayay maalintii suubin jireen se u helaan raashinka maalintaas ay cunayaan hadda laakiin waqtigu wuu isbedelay dadka waxbay barteen lacagay heleen bini'aadanku markuu lacag helo wuxuu awooday inuu cuno ama soo iibsado raashin inta uu rabo dad badan filinjeerka raashina uga buuxo markuu boorin qabto filinjeerkay aadayaan waxay rabaanay cunayaan dad badan baahi darteed raashinka uma cunaan waxay u cunaan boorin dartiis taas maxay keentay marka bini'aadanka markuu cuno waxa uu rabo intuu rabana ka cuno maxaa imaanaya wuu cayilaa markuu cayilana maxaa imaanaya waxaa ku dhacayo cudurrada cayilka keeno maanta adduunka xanuunada cayilka keeno lambar 1 waay ugu horeyntii su-aasha koowaad oo isweydiiska mudan waxay tahay maxaa keeno bini'aadanka inuu cayilo bini'aadanka inuu cayilo waxaa keeno bini'aadanka inuu ahaado caloric surplus qofka markuu cuno raashinku jirkiisa u baahan yahay wax ka badan wuu cayilaa boqolkiiba 99 dadka cayilan waxay cunaan raashinku jirkooda u baahan yahay wax ka badan ha way jiraan dad cayilka u keenay xanuuno ha way jiraan dad cayilka u keenay daawooyin ay isticmaalaan ha way jiraan genetics ahaan dad fat cells badan leh dadkaasna way u sahlan tahay inay cayilaan marka bini'aadanka inuu cayilo boqolkiiba 99 waxa u keeno bini'aadanka inuu cuno raashinku jirkiisa u baahan yahay wax ka badan marka hadda su-aasha kaloo isweydiiska mudan waxay tahay raashin gooni ah oo lagu cayilo ma jiro maya raashin gooni oo lagu cayilo ma jiro ha raashinka uu kala caafimaad badan yahay uuna kala kalori badan yahay laakiin raashin gooni ah oo lagu cayilo ma jiro haddaa cuntid raashinka adduunka ugu caafimaadka badan islamarkaasna uu kaa dhigayo caloric surplus waa ku cayilaysaa haddaa cuntid raashinka adduunka ugu caafimaadka xun islamarkaasna uusan kaa dhigaynin caloric surplus kuma cayilaysid marka tan ayay dadka isku khaldaan bariis iyo baasto ma lagu cayilo buskud iyo xalwo ma lagu cayilo biitsa ma lagu cayilo waxaa lagu cayilaa wax kasta oo cuntid oo kaa dhigayo caloric surplus raashin badan uusan jirkaaga u baahneen wuxuu raba ha ahaado haddaa cuntid waa ku cayilaysaa firi waxaa jirto arrin dadka isku khaldaan dad badan waxay dhahaan ani waxaan cunaa raashin caafimaad badan islamarkaana miisaankeyga kor u socdaa meeshuu hoos aadi lahaa haddaa cuntid raashin caafimaad leh taas macnaheeda ma ahan automatic miisaan inuu kaa dhacayo miisaan inuu kaa dhaco waxay ku xiran tahay inaad tahay caloric deficit inaad cuntid raashinku jirkaaga ugu baahan yahay xoogaa wax ka yar haddaa cuntid raashinka adduunka ugu caafimaadka badan islamarkaasna uu kaa dhigayo caloric surplus ma ku caatoobaysid waa kusii cayilaysaa khalad ay fahmin ani ma ku dhahayo cun raashinaan caafimaad lahayn raashinka caafimaadka leh iyo kan caafimaadkaan lahayn farqi weyn ayaa u dhexeeyo kun jeer waxaa fiican raashinka caafimaadka leh mideeda kale khalad hay fahmin ani markaan ku dhahayo waxa u cayilan tahay waxaa cuntaa raashinka u baahan tahay wax ka badan taas macnaheeda ma ahan inaan ku dhahayo gaajo isku dil haa miisaan waa iska ridi kartaa laakiin taas macnaheeda ma ahan inaad gaajo isku dishid fiidiyoyo badan aan ka suubiyey sida saxda ah miisaanka la iskaga rido fadlan haddaa rabtid miisaan inaad iska ridid kuwaas fiirso asxaabta fiidiyowga intaa ka bixin haddaa rabtid coach diyaaraan ku ahay coach aan kuu noqonaa ani markaan ku dhahayo coach aan kuu noqonaa macnaheeda ma ahan inaan barnaamij kuu suubiyo oo kuu soo diro oo meeshaas iskugu keen dambeynayso processka dhan waa kula soconaa tallaabo ayaan kula soconaa wixii khaldaba anaa bedelayo motivation aan kuu noqonaa waana kula xisaabtamaa haddaad diyaar tahay oo shaqo diyaar u tahay daacad kaa tahay ila soo xiriir waxaa igala soo xiriirtaa emailkan asxaabta daawashada fiideogan aad daawateen aad iyo aad u mahadsan tihiin ha iloobina fiideogan like ina saartaan comment ka soo bixisiin asxaabtiina u share garaysaan haddaa weli subscribe bixina fadlan subscribe dheh aad iyo aad u mahadsan tihiin mar koobaad mar labaad mar saddexaad waxaa noo balana fiideogan fiideoga ku xigo balanteenana waa caafimaad iyo muruq